halkan aanu ku sugannahay waa iridda hore ee beerta xorriyadda ee caasimadda magaalada Hargeysa. Waa banaanbax lagu taageerayo baarlamaankii Ingiriiska ee dhawaan ka doodayay aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland, gooni isku taaggeeda iyo qadiyadda Somaliland. Baarlamaanka Ingiriiska ayaa dhawaan u fadhiistay guriga sare ee baarlamaanka waddankaasi Ingiriiska sidii ay aqoonsi u heli lahayd Jamhuuriyadda Somaliland. iyaduna xusid geesta kale waxa iyaduna xusid mudan in maanta banaanbaxan aynu taagannahay uu dhammaanba ka dhacayo gobollada iyo degmooyinka Somaliland oo dhan. banaanbaxan ayaa waxaa iskugu soo baxay bulshadeeda qaybaheeda kala duwan ee rayidka ah, hadday noqoto ardayda iskuullada Jamhuuriyadda Somaliland oo iyagu qayb laxaad saaka ka qaadanaya banaanbaxa lagu taageerayo dowladda baarlamaanka waddankaasi Ingiriiska oo dhawaan ka doodayay jiritaanka iyo qadiyadda Somaliland. haddaba daawadayaal dhegeystayaal halkan aynu ka daawanayna waa Bino Live oo si toos ah aad ugu jirtaan bartaanu ku leenahay YouTube-kayaga. wixii wararada dambe waan idin socodsiin doonaa. hadda ayaynu afwiirida dhaafi doonaa oo aynu hadda ka soo galay dadweyne aad u tiro badan oo jiidanaya calanka Somaliland oo aad u dheer ayaa hadda beerta xorriyadda soo gelaya. dadweynahan ayaa wadooyinka caasimadda Hargeysa jaam ka dhigay maanta markii aanu la dhex marinay kamarada aanu eegnay in ay bulshada Somaliland ay dhammaantoodba yar iyo weynba sidii ay ugu qayb qaadan lahayd ujeeda jiritaanka iyo baarlamaanka Ingiriiska ay u taageeri lahaayeen. hadda gudaha hore u galeynaa shaqahay soo live si toos ah